بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال بإذن الله تعالى ما أنتم حنكال دونا خساء آد قيمة وله أو dhaxmartay نبينا محمد صلى الله عليه وسلم iyo saxaabi jaliil magaciis la dhihi jiray rabiica bin kacab al-aslami la dhihi jiray saxaabiga hadda aan sheegay rabiica bin kacab al-aslami nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayu aad u jeclaay jacalu nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam u qabo ay wuxuu ka codsaday nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam inuu u noqdo adeegihiisa ama qaadim ayuu noqday ka codsaday nabiga maxamed sallallahu alayhi wa sallam codsigiisa wuu ka yeelay saxaabigan nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayuu adeegi jiray habeenii maal nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxyaalaha u baahan yahay ayuu u keeni jiray bal iska dhaafe saxaabigan juhdi dadaal nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam uu sameyn jiray nabi maxamed jacayl u qabo xitaa habeenkii albaabka nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayuu seexan jiray wuxuu isdhihi jiray lacal hadduu nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam uu soo kaco wax u baahdo si waxa ugu baahdo nabi maxamed sallallahu alayhi ugu keeno nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam saa ayuu sameyn jiray saxaabigan aad ayuu u dadaali jiray markaas nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa sallam saxaabigan ay u dhimreen saxaabiga in yar ka naxay markaas wuxuu dhahay maalin maalmaha kamid ah asoo weyse u keenay ay wuxuu ku dhahay yaa rabiica sal nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa sallam fiiri saxaabigan u adeegay ayuu ka naxay ayuu u dhimraday nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa sallam muuminiinta ayuu jeclaay wuu ka naxi jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu tawba aakhirkeeda muxuu nagu dhahayaa لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلهي سبحانه وتعالى يدعو نورها وحادين ما رسول عليك إن كمده عزيز عليه ما عنتم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا دبايو وحا نغنا دبايو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا سيا دبايو حريص عليكم بالمؤمنين نبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين تايو كدلالا جهد ايو بخيي ونجعلها بالمؤمنين رؤوف رحيم ودمردا مؤمنين تايو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يكن حيا صحابي كان اكتيس ايو اديغا كاهاي مالما كميده بي ايو كين markaas wuxuu ku dhahay xaalkiisa ayuu ka naxay wuxuu ku dhahay ya rabiica sal rabiicu wax weydiisana muxuu ka wadaa su nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam wax la u weydiiso oo adduunye kamid u weydiiso ayuu rabaa markaasuu saxaabigan jaliilka muxuu dhahay amhilli in yar isugu dhahay wuu fikira markuu fikri kadib markaas wuxuu dhahay waxaan rabaa u dhahay muraafaqataka fil janna in aan jannada agtaadi aan joogo ama la jirkaaga jannada inaan naqdaan rabaa saa hadda adduunyaankaaga ag dhowahay aan ku qaadimaayo waxaan rabaa aakhirana jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala firdaws alaclaa inaan agtaadi saa adduu u joogo aakhiro saas u joogo ayuu rabaa markaasuu nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku dhahay aw gayra dalik wax kale maa jira ay weydiisanaysa taas ma ahane wax kale ay weydiinaysa ma jiraa markaasaytuu saxaabigan jiliga muxuu ku dhahay huwa daaka asiga bes ayaan ku weydiisanaa ayuu nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam ayuu dhahay ayuu ugu jawaabay yaa laytanii kuntu fardan min saxaabatihi أو قادما من أصغر القدم تجود بالدمع عيني حين أذكره أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي اللهم اجعلنا من رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الأعلى صحابي قال فيري وحوج عليها ينبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتيس أيوجو وجعلها الجنة إلهي سبحانه وتعالى وحي ويدي سالة لهي تا أي ويديسي أنا إلهك قداري هدوني محمد صلى الله عليه وسلم إحنا ويديسنا محا ويديسنهن تتقار الدنيا ويديسنا الدنيا وحي تاهي مالهن صحابي قال هم الدير أي والله هاي من الدير أي فيريا جنة إلهي سبحانه وتعالى يا قلبي يسكوها نبي محمد صلى الله عليه وسلم سوها دوقع الصدي إنه نبي محمد أكتيس وجو وأذيقه بالين تقام الحجة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الجنة الفردوس الأعلى نبي محمد صلى الله أكتيس يجعلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم markuu saas dhahay asina muxuu dhahay ma dhahay inuu gacmaha ilaahay kurta ilaahay ma bari ma dhahay yaa rabbi ij'al rabiica ka dhig rafiiqi fil janna ma dhahay maya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam albaabkuu furay
adigu kuu furay anuu ii furay dadka dhan u furay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markaas nabi maxamed markuu u jawaab wuxuu dhahay fa'inni igu saacid bikathrati السجود sujuuda badi ma rabtaa inaad jannada agteeda aad joogto ma rabtaa ama la jirka jannada agteeda ma rabtaa ha qof kasta inta jawaab maxaa loo baahayaan inuu sujuuda badiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala suuratu muzammil ilahay muxuu dhahayaa aayadda ugu dambayso إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلهي سبحانه وتعالى يقول إن ربك يعلم إلهي أجهل أنك تقوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه استاغو صلاة النبي كتبت إلهي سبحانه وتعالى أجهل أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل سدح برها جبين كرودي بر قد من إنه صلاة الليل تكون إلهي سبحانه وتعالى أجهل ونصفه أما كان برها بينك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون وثلثه وطائفة من الذين معك أما هدي سدح بر لودي هبينك بر لو النبي محمد صلى الله عليه هل بر يهرديا لو بر النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الليل تكون جرا أي تكون إلى أنك مقدر وطائفة من الذين معك إيقار كمله مؤمنين تكمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي والله مرك قفك دون يو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون معه نبع جلكي سورة أضنا هبينك تكو سنوينك بضي ظهركي وحاول أن كنت صلاة ظهر لقالي كور أفر ترعه تكو بعد الظهر تكو سنوينك بضي بعد العشاء سنوينك بضي صلاوينك السنة بضي إلهي سبحانه وتعالى سورة اقرأ إلهي سبحانه وتعالى أم علق إلهي سبحانه وتعالى حولها كلا لا تطعه واسجد واقترب إلهي وحولها يا واسجد هاطيع قال لقول محمد هلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطعه واسجد إلهي سبحانه وتعالى سجود واقترب الله سبحانه وتعالى ودواني سوا قف كربو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه رفيقي سجنا ونقضح ربا حراربا إنه مركور إلهي سبحانه وتعالى ودواني يا ربا مرك أنا كم حراربا إن السجود أنبضينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيأنا نقرأ رفيق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشكرا وجزاكم الله خيرا اللهم اجعلنا من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام